qofka uu micnihi la jajuumo ama la afduubto ama wax kale talugso qof walba isagoo miirkiisa iyo wax walba taamihiin xubnihiisa laga gadanayaa wuxuuna ku daboolayaa baahidiisa mid kasta ay taaba lacagtaas ku daboolayaa marka abaydin malahan waxaan wax caalamka ka jira wax soo jireena weligan baan ka soo shaqaysan jirnay aniga laftirkeyga xitaa markii ugu horeysay kalibaan iibsaday alxamdulillah hadda waxiga maqan ma jiro waan ku socdaa waan ku dhalaa alxamdulillah wixii aan u baahnaana waan helay way ii fududaadeen. عليكم أصحاب جروبك كسر وهذا channel كيجا وين كسر ترى يقف كديار وأبير كليه يقال كذا شذا وكسر خاطير كسعان كباقر يسقف بي كل دي سقبه يفسده سيدو كالبير كوكله كسر وهذا وين كسر ترى واحد ديار واللوقة هي صدلين. ما شاء الله ولا لسون أحسن ويا مقرتي إن شاء الله ما كسقيب قرينا وأنا إيماننا إن حرمها حاجة لو قصوا جاي كره حاجة بكويالن قبل ذي بكويالن إن شاء الله أنا لسوس سوا ربنا حبيبتي. أبايها حرمة وان لنا هاي قبل قصة أو بتلان كم مدنا وان كلنا هاي gobollo badan baan ku leenahay sida gobollada Puntland oo kale Somaliland oo kale koonfur galbeed oo kale Jubbaland Soomaaliya waxaan ka wada calaashan Soomaaliya xaqooda federaalka oo kale meelo badan baan ku leenahay Dubai baan ku leenahay adoo caalamka oo dhan waan ku leenahay sida Ethiopia meelaha noogu dhow oo waxyaalaha mataqaan qaliimada adag noogu fududaadaan waa Ethiopia ilaa Nairobi oo kale soo dhaqaatiir caalamka waxa jooga khatar ah iyagoo kale badan operationada waa lagu galaa kama taqaanal laga yaabo in Soomaaliya dib ay mid kale kaaga sheekeyn karo kaliya maahan ama beerka ama xubnaha kale oo qofka bini'aadanka in xitaa qofka dumarka markuu haysto in ma ku filan ilaa iyo di adu islay alxamdulillah maanta ilma kugu filan waa haysataa xitaa makaanka uu iibsan kara abay waxaan wax dhibo maahan maadaama ilma dhasho waxa laga yaabaa ilmaheeda inaysan nolol fiican haysan ama wax badan aysan u awoodi karin hadii ay makaankeeda u iibso waa $200,000 $200,000 ilmaheeda baahidiisa mid jaamacadeed mid guri mid dhaqan mid gaari kulli way ku difaaci kartaa baayo dimaraha markaa baay hadii aad noocaas oo kale tahay sinala soo xiriir waana ku mahadsan tahay hadalka. Assalaamu calaykum abaayo waa ku mahadsan tahay kasoo hadashay arrimaha iyaga iyo channelka iyaga inaan kugu soo xidhno hebigaagu noqday abaayo waxaa ka horeeya caafimaadka qofka oo la baaro inuu raali ka yahay kilida in laga saaro laga to kilida oo qiimaheedu yahay ilaa 60,000 ilaa 70,000 hadii uu caafimaad saa'id qabo hadii xoogaa kilidiisu diishtan 60,000 meelaha ilaa $55,000 sida beerka kale wadnaha kale wax walba caalamka bay wala bedela ku soo dhaw channelka iyaga oo kugu soo daraya asxaabta kalena sida uga soo heshay waa inay uga soo helaan baan filayaa insha Allah. Way khasab maahan inay kaliya adiga ahaan ama qof kale khasab maaha jijuna maaha baayo waa wax caadi oo caalamka ka jira inay micnihiisa qofka xubnihiisa uu gadan kara xor buu yahay.